بسم الله الرحمن الرحيم وحنا خالد عويل جامع كنا مقعدير خالد عويل عريان waxaan ku barbaaray oo aan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan waxbarashadeedii hoose dhexe ku soo qaatay magaalada Hargeysa iyo Saraba waxa aan khibradeyda shaqo ama shaqadeedu waxa weeye waxa aan ahay ka soo jeeda family ganacsato ah oo ganacsi balaaran magaalada Hargeysa ku leh waxa aan muddada faraha badan ku soo dhex barbaaray ama ku soo kaalin galay ganacsigii aabahay imikana muddo 20 sano ah waxa aan wali gacanta kula sii jiraa ganacsi aan anu gaar u leeyahay Khalid ahaan waxa sababta aan siyaasadda u soo galayna waxa weeyaan duruufaha siyaasadeed ee ku foogan ama caqabada ku ah ganacsiga magaalada Hargeysa ganacsatada waaweyn ama kuweeda yaryar guud ahaan ba caqabada ku ah iyo baahiyaadka jiray waxyaalaha looga baahan yahay ayaan dareemay oo aan xog buuxda ka haya waxa aan la socdaa in duruufo aad u adag ku gadaameen ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland siiba magaalada Hargeysa duruufahaas oo aan isri waxaad kaga saari kartaa adigoo u taga golaha sharci dejinta hadii Ilaahay yiraahdo golaha sharci dejinta waa golaha lagu curiyo xeerarka fududeynaya ganacsiga haduu soo dejin yahay haduu dhoofin yahayba iyo hadii marina muhiim ah loo helayo sida wajaale oo loo dejiyo xeerar unkaya in la geliyo dawladaha aynu jaarka nahay oo baahiyaad badan ka jiro oo aan bad lahayn waxay u kalifay in aan arinta ku soo dhiirado si aan u garab istaagi lahaa shaqada business-kan aan aqaano ee ganacsiga si aan ugu horumariyo arrimaha xeerarka taasaana sababtay in aan u tartamo golaha wakiilada xisbigan wadani waxa udub dhaxaad u ah dakhliga jeeblaha qofka maalintii dakhligiisa jeeblaha inuu kobciyo taasina waxa loo baahan yahay in la helo xeerar u saamaxaya ama fududeynaya in marka hore la sameeyo ama la curiyo tan baarlamaanka ahaan waxaan isleeyahay golaha baarlamaanka hadii aad tagto waxa dabar u noqon doontaan xukuumadda waxqabadkeeda iyo waxqabad la'aanteeda si loola xisaabtami karo ama dheelitir la'aan loo sameyn karo si hawsha loo qabto waa in la tagaa ama loo tartama xubinimada golaha baarlamaanka waxa aan u sheegayaa bulshadeeda ama mujtamaca aan u sharaxanahay reer gobolka Maroodi Jeex waxaan u sheegayaa in aan waxyaalo badan kala qaban doono arrimaha ganacsiga oo aan u fududeyn doono xeerar badan oo sahlaya in qofku si xor oo xalaal u ganacsado isla markaana uu xaqiisa iyo xuquuqdiisa ka helo xukuumadda kulana xisaabtamo si sharciga waafaqsan hadii Ilaahay ka dhigo waa hadii aanu golaha nimaadno waanu ka shaqeyn doonaa aad baanu juhdi u gelin doonaa astaantaydu waxa weeye waa kaariyoone wuxuu ka turjumayaa ganacsatada dalka ayuu ka turjumayaa kale maskaxdii muruqi caafimaad qaba maskax caafimaad qaba keena waxaanu dadka ku dhiiri gelinaynaa dadku in ay shaqeystaan oo xoogsadaan oo hadalka iska daayaan oo wax la soo baxaan oo naftooda ku kalsoonaadaan oo dalkooda ku kalsoonaadaan oo ay waxqabad rasmi ah la yimaadaan oo qofku naftiisa uu ku tashado oo aynu bulsho ahaan iska dayno hadalka iyo ku tirikutaanka aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.